weli waxaynu ku dhex jirnaa fasalkan labaad oo yahay magaciisa tetracycline class. maadaama fasalkan tetracycline aan soo dhahnay in fasal ka tirsan groupkan antibiotic soo hoosgali kara daawooyin qaar ka mid ah sida doxycycline, tetracycline, demiglocycline, monocycline iyo daawooyin kaleba oo soo hoosgali kara. sidoo kale waxaynu soo aragnay what are tetracyclines, yani ereygan tetracycline horta muxuu yahay. waxaad ogaataa ereygan tetracycline inuu yahay fasal ka tirsan groupkan antibiotic. sidoo kale waxaynu soo barnay what are tetracyclines used for, yani fasalkan tetracycline daawooyinka ka soo jeedaan maxaa loo isticmaalaa. maantuna waxaynu barani doonaa tetracyclines self, yani fasalkan tetracycline-kan daawooyinka ka soo jeedaan qofkan hadduu umad isticmaalo badbaado miyuu heli doonaa, iyo what are the side effects of tetracyclines, iyo waa maxay horta waxyeelada oo qofkan kaga kulmi doono lacalada isticmaalo daawooyinkan ka soo jeedaan fasalkan tetracycline-ka. tetracyclines self, yani fasalkan tetracycline-kan daawooyinka ka soo jeedaan ma badbaadaba. tetracyclines fasalkan tetracycline-kan considered waxaa lagu qiimeeyaa safe in uu yahay gabi ahaanba badbaado when used markii la isticmaalo at the recommended dosages, yani baahnaashada loogula baahnaan doono inta kuuro ay ku bixiso bukaankan daawadiisa. for the recommended duration of time, iyo baahnaashada loogu baahnaan doono waqtiga iyo muddada ay qofkan daawada ku qaadan lahaa, yani inta waqti marka la tusaale ahaan maalintiiba 2 waqti ama 3 waqti ama 1 waqti, taasoo hadhowda laga sixi doono habka loo isticmaali lahaa daawooyinkaas oo idin.